بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسigeennu wuxuu u badan yahay darsi taariikhiya, mana fududa. ugu horrayn taariikhda ama dhacdooyinka dunida soo maray iyo isbeddelka dowladaha iyo dadka ku dhaca iyo umamka halaagsamaya iyo umamka soo kacaya, daraasadooda ama taariikhdoodoo laga warramaa waxay keensataa in lagu waayo arko. ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aanka intuu kaga warramay taariikh bini aadam ayuu wuxuu ku gebagabeeyey factabiruu yaa ulil absaar. wax ku qaata baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala kuwa aragtida u saaxiibka ahow. waxaanay keensanaysaa isbeddelkaasi iyo dadkaa halaagsamaya iyo wixii la mida marka laga warramo inay sabab u noqoto dadku adduunka macnayaridiisa inay arkaan oo ka zaahidaan, aakhirana raadiceeyaan. marka aad aragto kuwa shalay boqorra ahaa ama dowlada ahaa ama xoog badnaa ama dunida ka talinayay oo maanta aan waxba ka jirin, marka aad aragto dowlado xoog ahayoo dulloobay, marka aad aragto duwal noolaa oo baaba'ay, waxa qudhe soo hadhaya un waa alle subxaanahu wa tacaala. ilaahayna qur-aanka markuu qisadii uxud marka alle ka warramayo waxa uu ku tilmaamay in yamsaskum qarxun faqad massa alqawma qarxun mihluh watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas waliyaclama allahu aladiina aamanuu wayattakhida minkum shuhadaa wallahu laa yuxibu aldaalimiin. waa maalmo aanu dadka u kala beddelayna baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala. intaasi waa taariikhda guud ahaan. markaan hoos u dhaadhaco aan imaado qudus ama baytulmaqdis ama iliyaa ama orshalim ama waxaa doontaba dhehe magacyadaa badan magaaladan leh, sideedaba waddanka shaam la yidhaahdo, shaam waa falastiin iyo suuriya iyo lebnaan iyo urdun iyo inahaasi, waa meelaha ugu qadiimsan dunida ee bini aadam ku noolaan jiray. magaalooyinka ku yaallaana hadday tahay dimashq waxaa lagu tilmaamaa 11 kun oo sannadood meelaha inay jirto. hadday tahay dimashq, hadday tahay xalb, hadday tahay ariixa, hadday tahay yaafa, hadday tahay caka, hadday tahay ghaza, hadday tahay qudus, dhammaantood 5 kun oo sannadood way ka wen yihiin baan filaya. yacni waa magaalooyinkii ugu qadiimsanaa ee dunida la dego. maadaama ay sidaa tahay waxaynu garan karnaa xawaadis badan iyo dhacdooyin badan inay soo mareen. magaalooyinka haddana markaynu qudus ka sii dhex tilmaamno, qudus waa magaalo xadaaraad tiro badan iyo firaq diimeed oo kala gedisanoo tiro badan ay soo mareen. ka warrankeedu markaa ma fududa. qudus magaalada qudus la yidhaahdo qaybteeda qadiimka waxay yidhaahdaan taariikhda hadda la hayo 2000 sane hadda mooyaane 4000 sano ka hor baa la degay bay yidhaah ayaa la dhisay dhismaha hadda meelahaasi ku yaalla. isla markaa haddaynu eegno xawaadistii ka dhici jirtay, maalan ninka la yidhaahdo Eric Klein waa nin maraykana oo historiana, taariikhyahana bugaag badan leh, masiixiyaan rajaynayaa. wuxuu leeyahay buug la yidhaahdo Jerusalem Besieged from ancient Canaan to modern Israel. buuggiisaasi waxyaabuhu ku tilmaamaya cajabta leh waxaa ka mid ah. wuxuu leeyahay magaaladan taariikhdeedii badnayd haddaynu eegno 2 jeer waa la dumiyey, 23 jeerna xisaar waa la go'doomiyey, 52 jeerna waa la weeraray, 44 jeerna waa la qabsaday. yacni qudusta caynkaasiya markaa haddaynu isdhaha taariikhdeeda ka warran waa taariikh aad u ballaadhan oo aan muxaadaro iyo 1 iyo 2 iyo 3 toona lagu keeni karin.
laakiin waxaan isku dayayaa maa qabla alislaam inaan ka tago wixii islaamnimada ka horreeyey inaanan waxba ka tilmaamin inaan soo koobo alxadaara alislaamiya intii ay jirtay iyo qudus siday u ekay marka la eego qudus iyo makaanada islaamka ku leedahay waxaynu naqaanaa inay tahay haani aqdam masjid fi lcaalam masaajidkii labaad ee ugu da'weyne dunida ku yaalla oo qur-aanka ilaahay waa ka inoogu tilmaamayay ina awala beytin wadica linnaas laladii bibakka nebiguna xadiidkiisa waa ka ku tilmaamaya 40 sano kadib in beyt almaqdisna la dhisay waa ululqiblatayn waa qibladay muslimiintu u jeesanayeen 17 bilood ilaa iyo ilaahay subxaanaه wa tacaala aayaadka fii suurati albaqara oo ah aayaad wax nasakha aayaadka ugu tiro badan leh qur-aanka ku yaalla waayo waa mas'ale ku adkayd bay yidhaahdaan muslimiintu markay madiine joogtay oo ay la noolaayeen dad kale iyana waa qiblo ka mida qibladii ay muslimiintu u jeesan jirtay hore 17 bilood waa mar saddexaad waa haaliثu اlxaramayn waa xaramkii saddexaad oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamayo salaada lagu tukado masjidi haadana inay 1,000 tahay ka lagu tukado makana inay 100,000 tahay ta lagu tukado masjid al-aqsana inay 500 oo salaadood u dhiganto waa mar kale ee waxaan leenahay waa masra rasuulillaahi sala allahu calayh waaalih wasalam waa meeshii ilaahay subxaanaه wa tacaala nebigiisa uu israha iyo micraajkuba meeshuu ka dhacay oo ah min mucjizaati الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam inuu habeen qura maka ka tago oo uu tago beyt اlmaqdis oo ay daliil u noqoto markaa micraajka iyadoo maka iyo madiina uu 14 maalmood in ku dhadhow u kala socday laakiin beyt almaqdis iyo maka gudaheeda ilaahay uu kaxeeyey habeen gudaheed inta la geeyey in la soo celiyo waa makaanu curuujihi waa meeshii nebiga laga dheelmiyey cirka laga qabadsiiyey waa meeshuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ambiyada ku tukiyey imaamka ugu noqday waa meeshuu nebigu ku tilmaamayo 3 meelood in cibaado loogu safro oo 3daa masaajida waa meel ay deganaan jireen nebiyada in badan qur-aanku uu ka warramayo hadduu yahay nebi ibraahim nebi luut nebi isxaaq nebi yacquub nebi yuushac nebiyullaahi daawuud nebiyullaahi sulaymaan ambiyo badan oo qur-aanka iyo sunnadu ay ka warramayaan waa meeshay deganaan jireen intaa kadib waxaan leenahay waa meeshii koowaad ee jihaad loo waajibiyo wixii ka horreeyey udkhulu اlarda almuqadasa ee nebi muuse lagu yidhi wixii ka horreeyey ambiyada waxaa la fari jiray inay dacwada faafiyaan dadku hadday dhibaan ambiyada u taag waayaanna ka baxa baa la odhan jiray dabeetana waa la halaagi jiray nebi muuse wixii ka horreeyey qur-aanku ka warramay ee nebi ahaa dadkii umamkii ka soo hor jeeday inta la yidhi intii mu'miniinta ah ka baxbaa intii kale la halaagay waxaa la yidhahaa qisada nebi muuse labada darafba way ka qayb noqotay qayb qoladii la halaagayay hore way ka qayb noqoto fircoon wakhtigiisii waxa la yidhi ka bax magaalada markii ay ka baxeenna ilaahay subxaanaه wa tacaala baddu u kala jeexay fircoon iyo kooxdiisii waa la halaagay laakiin haddana iyagaa ah dadkii ugu horreeyey jihaad la fara baa la yidhi oo dabeetana waxaa la yidhi udkhulu اlarda almuqadasata alatii kataba allahu lakum beyt almaqdis gala waa meeshuu furtay markaasi nebi muuse waa kuwii iskaga hadhay ee yidhi halkaannu annagu fadhiyaynaaye idhab anta warabbuka faqaatila innaa haahuna qaaciduun xadiidka nebigu waa ka inoo tilmaamaya yuushac ibnu nuun inuu furtay yuushac ibnu nuun nebigii la odhan jiray inuu furtay inta haddaynu soo dhaafnoo nimaadno cahdigii nebiga calayhi salaatu wassalaam sunnada 2 bishaaraa ku soo arooray mid hiraqal baa laga warinayaa markii uu nebigu waraaqaa kala diray heraklis ninkii la odhan jiray romanska oo markaa isagu ka taliya beyt almaqdis markii loo keenay waraaqdii nebiga waa kii nimankii ka yimi abu sufyaan iyo koox la socotay oo mushrikiin ahaa oo safara interviewga ka qaaday kadibna wuxuu yidhi fain kaana maa taquulu xaqan waxa aad sheegaysaa hadday dhabtay su-aaluu weydiiyey uu ku hubinayo nebi maxamed nebi mayey mise ma aha 13 su-aalood ama 14 su-aalood ayuu weydiiyey oo bukhaari soo aroorinayo su-aalaha kadib
mid walba wuxuu sababtu u weydiinayna wuu sheegay kadib wuxuu yidhi waxa aad ii sheegtay hadduu dhab yahay fasayamliku mawdica qadamaya haatayn halkan aan maanta fadhiyo wuu qabsan doonaa waqad kuntu aclamu annahu khaarijun lam akun adunna annahu minkum waan ogaa in nebi ilaahay soo dirayo wakhtigiisii uu joogo maan se filin inuu idinka soo baxayo falow aclamu annii akhlusu ilayhi latajashamtu liqaa'ah walow kuntu cindahu laqasaltu can qadami wuxuu markaa tilmaamayaa meeshuu joogo inuu qabsan doono waa saadaashii heraklis nebiyullaahi moxamedna calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaariya ibnu maaja iyo axmedba warinayaan ee maalik cawf ibnu maalik ayaa wuxuu yidhi nebigaan u imi calayhi salaatu wasalaam ghaswatu tabuuk waa dagaaladii ugu dambeeyey uu nebigu galay mid ka mid ah dagaalkii tabuuk waa romaniska dagaaladii lagu soo qaadayay markaas baan u imi buu yidhi isagoo taambuug yar ama qubbo yar oo ka samaysan harag ku jira dabeetana wuxuu nebigu igu yidhi buu yidhi calayhi salaatu wasalaam ucdud sittan bayna yadayi saaca lix tiri buu yidhi aniga qiyaamaha hortii lix shay oo calaamaadka qiyaamaha ka mid ah tirsa buu ku yidhi lixda shay wuxuu nebigu ugu horraysiiyey mowti geeridayda inuu nebi maxamed geeriyoon doono calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku xigsiiyey nebigu uma fatxu bayt ilmaqdis buu yidhi aniga waa geeriyoonayaa kadib baa la furan doonaa bayt ilmaqdis afar shay oo kale oo geeri badani inay dhici doonto oo ay mufasiriin ama muxadisiintu ku tilmaamaan طaacuunkii camwaas amiinu haadihi lumma abu cubayde iyo raggii la midka ahaa ku dhinteen markii ay furteen magaalada kadib inuu yahay xooluhu inay badan doonaan fitna inay dhici doonto guri kastoo carbeed geli doonta hudna inay dhici doonto calaa kulli xaal xadiidka maxalu shaahidkeenu inaguga soconnaa waxa weeyaan uun fatxu bayt ilmaqdis in la furan doono bayt ilmaqdis nebigaas sii sheegay calayhi salaatu wasalaam goorma la furtay bayt ilmaqdis abibakar markuu nebiga dabadiye calayhi salaatu wasalaam uu qabtay khilaafadii islaamiga ahayd waxaa bilaabmay asxaabu ridda sanadkii hore qoladaasu ku mashquulsanaa sanad labaadkiisii wuxuu bilaabay inuu weerar geliyo labadii dowladood ee dunida ugu waaweynaa ee ahaa bershiya iyo romanis labadaba in dagaal lagu qaado ciraaq iyo shaam labadaaba mar qura in dagaal lagu wada qaado ciidamuu kala diray ay hogaaminayaan saxaabo tiro badan leh khaalid ibnu saciid yaziid ibnu abi sufyaan shuraxbiil ibnu xasna abu cubayd ibnu aljaraax camar ibnu alcaas raggaasi ciidamay hogaaminayaan buu kala diray wakhtigaa waxaa dhacay baa la yidhaahdaa kadib macraka weyn oo loo yaqaano macrakatu ajnaadiin macrakatu ajnaadiin waxay ka dhacday magaaladan hadda la yidhaahdo khaliil ee ku taalla israa'il meelahan ay hadda haysata ah dhinaceeday ka dhacday meel u dhow romaniski iyo muslimiinta isgalay jumaada luula 7labaatankeedii 13kii hijiriyada ayay muslimiintu guulaysteen macraka labaad baa ku xigtay oo tii yarmuuk nahru yarmuuk ka dhacday waa goolan agteeda iyana muslimiintu waa guulaysteen hazaa'imtaasi markii ay ku dhacday kadib oo halkaa ay muslimiintu marayaan ayuu cumar qabsaday abibakar dhintay cumar baa dowladdii islaamiga ahayd qabtay cumar wuxuu beddelay maamulkii askarta abaa cubayda bnu ljaraax buu isugu dhiibay ciidamadii shaam oo dhan yarmuuk laga soo bilaabana khaalid ibnu waliid baa haystay khaalid buu ka casilay khaalidna waxaa laga dhigaa askar ka mid ah askaree askarta muslimiinta ka mid ah wakhtigaa waxay muslimiintu joogaan falastiin inteeda badan gacantay ku hayaan marka laga reebo baa la yidhaahdaa magaalo yaroo qaysariya la yidhaahdo oo xeebta ku taalla oo iyada romanska madad badan ka heli jirtay ghaza meeshan hadda la isku dilayo camar ibnu caas baa markaa furtay intaa kadib muslimiintu waxay bilaabeen abu cubayda markii ciidanka loo wada dhiibay abu cubayda markuu dimashq furtay ayaa ciidamadiisii ka soo dhaqaaqeen waxaa la yimi bayt ilmaqdis waxaa la geliyey go'doomin
muddo xisaar markii ay ku jireen ayay waxay dalbadeen heshiis in lala galo nimankii meesha ku jiray heshiiskii bay muslimiintu ka aqbaleen waxay kaloo heshiiskooda ka mid oo ay dalbadeen caqdiga cidda noo saxeexaysay aanu furaha ku wareejinaynaa waa inuu noqdaa cumar bin alkhataab oo amiirulmu'miniin oo madiina jooga ayay dalbadeen nimankii baytulmaqdis joogay inuu noqdo cidda furaha lagu wareejinaya abaa cubayda war buu u soo diray cumar isagoo arrinkii u sheegaya cumar saxaabuu la tashaday cuhmaan uu ka mid yahay cali uu ka mid yahay cuhmaan ra'yi buu soo jeediyey ah nimanka gaaleed ma aha inay muslimiinta sidaa ugu kibraan ee ha aqbalin ha u tegine ha la weeraro calina ra'yi buu soo jeediyey odhanaya muslimiintu in badan bay dagaal ku jireen waxa u dhib yar inaad tagto furaha lagu siiyo halkay dagaalka geli lahaayeen cumar wuxuu qaatay ra'yigii cali dabeetana wuxuu aqbalay inuu baxo waa soo baxay wuxuu soo aaday meeshii la odhan jiray baytulmaqdis ciidamadii muslimiinta raggii hoggaaminayay baa ka hor yimi cumar oo isaga iyo ghulaamkiisii wiil u shaqaynaya ayaa awr midkoodba mar fuulaya cumar wuxuu yidhi marna anaa fuulaya oo adaa kaxaynaya marna adaa fuulaya oo anigaa kaxaynaya marna awrkaynu nasinaynaa buu yidhi saddex qaybood baynu u qaybinaynaa dabeetana waxaa ay ku soo baxeen cumar oo meel dhooba a maraya oo labadii kabood suxulka gashaday oo wiilkiina saaran yahay awrka cumarna hoggaaminayo abaa cubayda bnuljarax baa wuxuu ku yidhi yaa amiira almu'miniin niman madaxdooda waaweyneeyaynu u tegaynaa caynkano waxay ila fiicnaan lahayd yacni inaad sidan yeelin low hayruka qaala xadiidkii xaakim warinayay waa maalintuu cumar leeyahy waxaan jeclaan lahaa adiga midaan ahayn inuu warkaasi ku hadlo annagu dad baanu nahay islaamnimada ilaahay ku ciseeyey wax kale haddaanu sharaf ka raadinno ilaahay waa na dullaynayaa buu leeyahy yacnii maryo la cadcadaysta iyo kaba la xidha iyo waxaasi wax weyn aniga ima aha buu cumar tilmaamaya inaan muslim oo diin haysto ayaa warka rasmiga sidii buu ku socday sidii buu ku tegey baytulmaqdis baytulmaqdis waxaa la kulmay bay dhahaan batriikii ninkii kiniisadda u weynaa taarikhyahanadu wax badan bay qoraan markay masaladaa ka warramayaan ninkaas iyo suu cumar ula kulmay iyo waxay rabeen inay sameeyaan cumar u diiday baabkaa waa iska dhaafaynaa wuxuu yidhi waxaan kugu casuumaya inaad kiniisadda aan ku soo tuso cumar baa raacay kiniisaddii baa la galay kiniisadda isagoo ku jira cumar ayaa wakhtigii salaaddu u soo galay ayna usalli buu ku yidhi waar xaggaan ku tukadaa wadaadkii kiniisadda haystay wuxuu yidhi makaanak halkaaga iskaga tuka buu yidhi cumar wuxuu yidhi haddaan halkan ku tukado berritay muslimku odhan doonaan waa meeshii cumar ku tukado waa lagaa qaadi doonaaye waan ka baxayaa dabaddaan ku tukanayaa cumar wuxuu diiday inuu ninkii yidhi kiniisadda ku tukado waayo wuxuu leeyahay amiirulmu'miniinkaygii baa halkan ku tukaday baa lagu odhan doonaa oo barraa laydinka qaadi doonaaye wuxuu ku tukaday meel bay yidhaahdaan dhagax la tuur in dhagax la tuuro in leegu jirta ayuu ku tukaday halkii hadda masaajid baa ka dhisanoo masjidu cumar baa la yidhaahdaa saddex masjid baa ku yaalla meeshoo saddexdaba masjidu cumar loo bixiyey kaasaa ka mid ahaa markaa cumar markii uu salaaddiisi iyo wixii dhammaystu ninkii wuxuu ku yidhi qiska ahaa wadaadkii meesha haystay waar mee masaajidkii ambiyadu dabeetana waxay u tilmaameen meel masbale ah meel kudaafadda lagu daadiyo qashinka ay yidhaahdeen halkaasuu ahaa culamaa'i taariikh waxay yidhaahdaan meesha nimanka haystay waa kristan yuhuudna waxay u arkayeen inay ilaahoodii u dileen col bay wakhtigaa la ahaayeen dabeetana meeshanna yuhuud bay qiblo u ahayd yuhuudna way eriyeenoo saareen qibladoodana aan xumayna bay yidhahdeenoo kudaafad bay ka dhigteen marka kudaafad bay ahaan jirtay cumar mee buu yidhi waa halkaas baa la yidhi meeshaa kudaafaddaa weeyaan kudaafaddii buu guray cumar saxaabadiina waa la gurtay meeshii buu nadiifiyey masaajid yar buu ka dhisay masaajidkii baa lagu tukaday masaajidkaas ayuu meeshaa ka dhisay cumar
goorma la furtay ama sanadkee bay ahayd taariikhyahanada muslimiintii taariikha kala gedisan bay tilmaamaan مثلا qaar waxay leeyihiin waa rabiicul awal baa la furtay magaalada tabarina wuxuu soo naqlinayaa rabiicul aakhir bay ahayd imaamu tabari iyo ibn aljawsi iyo ibnu kathiir waxay ku tirinayaan xawaadistii sanadkii 15aad ee hijriyada dhacday inay ka mid ahayd furashada magaaladaasi imaamu dahabi wuxuu ku tirinayaa xawaadistii sanadkii 16aad dhacday inay ka mid tahay qowlka dahabi qowl la midana wuu soo naqliyay imaamu tabari sida caankee dadku ay sheegaanna waa sida balaadari uu ku sheegay kitaabkiisa oo ah inay sanadkii 17aad ay ahayd mahma takun saddexdaa qowlba waa jiraan 15kii bay ahayd 16kii bay ahayd 17kii hijriyaday ahayd intaba kutubu taariikh waad ugu tegaysaa ahdi buu cumar iyo nimankaasi ay kala qorteen ahdigaasi wuxuu u qoraabaa la yidhi sidatan ilaa hadda way taallaa waraaqdii alcahdi alcumari كنيسة القيامة ويتالا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم ورلير كان وحي عمر أمير المؤمنين إيون من كا إيلياء أما بيت المقدس دقناي كلا قرتين أمانها وإن نبتقليه siiyey buu yidhi naftooda iyo maalkooda iyo kiniisadooda iyo saliibkooda iyo bukaankooda iyo caafimaad qabkooda iyo diintoodu wax kastoo ay tahayba inaan sidooda ugu daayo wuxuu kaloo ammaankaa ka mid ahaa laa tuskan kanaa'ihim walaa tuhdam ammaankani siduu xuquuq u badnaa sistamka meelahan ay hadda yidhahdaan xuquuqu bini aadamkaa lagu qoraa waraaqdani way taallaa an laa tuskana kanaa'isuhum walaa tuhdam kiniisadahooda inaan lagana degin oo laga qaadin lana duminin walaa yuntaqasu minha walaa min xiyaziha walaa min saliibihim waxa ay leeyihiin nimankaasi inaan laga qaadin buu u qoray xoolahooda inaan laga qaadin buu u qoray diintooda inaan qasab lagaga saaray ama cidna lagu qasbin buu u qoray waxaa ka mid ahaa wuxuu qoray walaa yudaara axadun minhum qof iyaga ka midoo wuxooda haysta inaan wax dhiba loo geysanin عهدigaa waxaa ka mid ahaa masale iyagu ku adkaayeen oo dalbadeen masaladaasi maxay tahay walaa yaskunu biiliyaa'a macahum axadu min alyahuud cumar dalabkay ka dalbadeena uu aqbalay waxaa ka mid ah magaalada bayt almaqdis la yidhaahdo yahuudi kuma arki karna bay yidhaahdeen bayt almaqdis romaniskaa ka saaray oo kristan ahaa dabeetana waxaa ku soo celiyey bershianiska 624kii meelahaasi mise 14kii 10 sannadood wax ku dhadhow bay joogeen kadib baa haddana romanisku dib uga saareen ama heracles uu dib uga saaray cahdigaa waxaa ka mid ahaa uuna ay markaa nasaari taagnay nasaaro wax kale qaadatay baynu ka warrami doonaaye inaan meeshaa lala degin oo yuhuudi aanay la degin dhanka kale intaasi waa intii iyaga la siiyey dhanka kale waxaa la yidhaahdeen annaguna waxaanu ogollay inaannu jizye bixinno kow cumar wuxuu kaloo ku shartiyey romaniska iyo tuugtana inaa meesha ka saartaan marka romaniska wixii ah iyo lusuusta tuugta in magaalada laga saaro ciddii rabta inay magaalada ka guurto in loo oggolaado naf iyo maal iyo xoolaba inuu la bixi karo dadka beeralayda ah ciddii rabta inay iska tagtana waa la ogolyay ciddii beertooda haysanaysa oo jizye bixinaysana iyana waa la ogolyay jizyadu waa cashuur madaxeed kuwani xoolahay cashuuraan laakiin muslimiintu dadka aanu dhalanin madaxoodaa la cashuurayay laakiin muslimiinta zakaa laga qaadayay xuquuq bay lahaayeen ah in la ilaaliyo oo ay ammaankooda iyo dowladnimada ku hoos jiraan dowladnimada taxka markaa inay bixiyaan bay ahayd wuxuu cumar markaa yidhi beeralayduna meeshooda way haysan kartaa jizyun baa laga qaadayaa weliba jizyada waxaa laga qaadayaa marka ay beertu u go'do oo qura sidaas bay muslimiintu ku qabsadeen meesha la yidhaahdo bayt almaqdis qarnigii koowaad ee hijriyada 15keedii ama 16keedii ama 17keedii kaa tidhaahdaba masaajid yar buu cumar meesha ka dhisay masaajidka meeshuu ka dhisayey imaamu axmed xadiidka uu warinayo kacbulaxbaar ayuu cumar wuxuu ku yidhi ayna turaa nusalli halkay kuugu muuqataa inaan ku tukanno
dabeetana wuxuu yidhi aniga waxay ila tahay si qibladeennii iyo sakhradii meeshan hadda ay yuhuudda u ahayd qibladu wuxuuba ay xagga inooga wada xigaan dhabarkeeda aan ka soo tukanna buu yidhi cumar baa wuxuu ku yidhi daahayta alyahuud weli kacb axbaar waa nin yahuudi oo muslima yacni waxaad wixii yuhuuddaad weli wadataa buu leeyay yuhuuddii baad u ekaatay cumar wuu diiday dabeetana wuxuu yidhi halkii nebigu ku tukadaan ku tukanaya horteeduu ku tukaday oo markaa waxa weeye qibladii yuhuudduna xagga dambey ka xigtaa xagga kacbaduna xagga horey ka soo xigtaa xaggaas buu salaaddii ku tukaday sida xadiidkaasi imaamu axmed uu warinayo ibna kathiir iyo axmed shaakir iyo ay leeyihiin waa xadiid saxiixa inkastoo qoladan musnadka taxqiiqisay ay daciifinayaan sababtuna waa nin ku jirta baa laysku hayaa ma daciif baa mise maaha ragga badhna daciifiyeen badhna xoojiyeen cumar meeshaa uu ku tukaday oo masaajidkii ugu koowaad laga dhisay markaa kuwii hore waa dumeen cumar baa bilaabay masaajid yaroo sarab oo cariisha buu ka dhisay mucaawiya xilligiisii yaro ballaadhiyey masaajid cariishuu weli ahaa dawla umawiya markay ay jirtay wakhti cabdilmelik ibnu marwaan xilligiisii iyo inankiisii alwaliid ibnu cabdilmelik labadan nin ayaa qubaddan iyo masaajidkan iyo waxaan dambe oo dhan dhisay weliba waxaa la yidhaahdaa cabdilmelik ibnu marwaan masaajidkan dhisistiisa wuxuu bilaabay markii laga qabsaday xarameynkii kale cabdillaahi ibnu zubayr markii uu qabsaday maxaa la yidhaahdaa xijaas oo dhan iyo ciraaq iyo dhulkaas oo dhan markuu qabsaday khilaafadiisii ayuu wuxuu bilaabay xajka dadka yimaada inuu bayco ka qaado wuxuu ka cabsaday bay yidhaahdeen reer shaam hadday xaj tagaan in iyagana uu bayco ka qaado ay saasi khilaafadiisa ku galaan dabeetana intuu xadiidkii imaamu zuhari ee laa tashaddu rixaal u daliishaday ayuu halkan amaamuday dabeetana masaajidka weyn iyo qubada tan iyo waxa kan oo dhan isagaa sameeyey isagoo raba bay yidhaahdeen inaan ibnu zubayr la xoojinin buu sidaasi u galay inankiisiina alwaliid ibnu cabdilmelikna waa uga dambeeyey oo isna waa sii xoojiyey waa sida uu qorayo imaam ibnu kathiir iyo sibt ibn aljawsi fii kitaabi mir'aati zamaan labadubana waxay ka soo naqlinayaan yacquubi fii kitaabihi yacquubigaasi waxa uu qorayaa isagu iyo uu leeyay sakhrada isagaa dhisay qubatu sakhra qubbadan weyn ee dahabka u eg isagaa dhisay buu leeyahay ayaamu fitnati cabdillaahi ibnu zubayr soo duduub labadaa nina isdhalay ayaa dhisay masaajidka iyo intan kale masaajidku ini waa intii masaajidkii rasmiga ahayd inna waa qubbada tan ee sakhradu ay ku taallo iyo saaxada u dhaxaysa intoo dhan oo la isku daro ayaa xaram lagu wada tilmaamaa intoo dhan oo la isku daro bay yidhahdeen xaramu masjid alaqsa waa 141,000 oo mitir square bay yidhaahdaan marka intaasoo dhan la isku daro waagii dambaa laba suur loo samayn doonaa siduu mustafa dabaaq fi kitaabihi alquds ku tilmaamayo markii ay dawladda umawiyiintu ahdiyadeedii dambe oo ay daashayba ayaa zilzaal ka dhacay dhulgariir baa dhacay markay 130 hijriyadu maraysay dabeetana masaajidka dhanka bari iyo dhanka galbeedba waa dumay dawladdii umawiyiintiina markaa idiraabaad baa iskaga jiray masaajidkii umawiyiintu waxay ka tageen isagoo labadaa dhinacba ka dunsan waxaa bilaabmay alcahdi alcabaasi abu jacfar almansuur ninkii la odhan jiray oo 141kii hijriyada markay qabsadeen yacnii kadib imaamka ahaa ayaa yimi dadkii baytulmaqdis deganaa waxay ku yidhaahdeen waxaanu rabnaa masaajidkii waa dunsan yahay inaad dib u dhisto waan dhisayaa buu yidhi waxbaba kale muu samayne qubbada iyo albaabadeedii iyo wixii dahabkii ku dhijsanaa iyo fidadii ku dhijsanayd buu ka guray dabeetana iyadii buu ku dhisay masaajidkii buu dib u dhisay haddana dhowr iyo 10 sano kadib 158 markay hijradu maraysay ayaa dhulgariir kale ka dhacay qaybo masaajidkii ka mida baa dumay mar labaad waxaa dhisay almahdi ibnu almansuur inankiisii abu jacfarkan inankiisii mahdi ahaa ayaa dhisay
oo xoolo badan isagu ku bixiyay bay yiraahdeen si fiican u dhisay taariikhdu haddana markay 216 maraysay baa zilzaal saddexaad ka dhacay bayt al-maqdis marar badan buu ka dhici doonaa zilzaalkaas ayaa dhul gariir kale ka dhacay haddana masaajidkii qaybo ka mid ah baa dumay dib uu u dhisay ma'muun ninkii la odhan jiray 216 baa ma'muun dib u dhisay magaciisana ku qoray awal dee qolada umawiyiinta laakiin taariikhdii muu bedelin bay yidhaahdaan taariikhdii umawiyiintu dhiseen wuu u daayey laakiin isagaa isku qoray magaciisii buu ku qortay dawla alcabaasiya xilligii dambe iyana way daciiftay taariikhdoo dhan waan dul marayaa uun markii ay daciifeen ayaa waxaa masar la gaar noqday axmed ibnu طawluun ninkii la odhan jiray aطuluuniyiin dowladdoodii dabeetana masar markuu gaar ula noqday waa wilaaya goosatay oo ka goosatay khaliifadii ayay u qabsaday falastiinna markuu falastiinna ku darsaday isagaa muddadii طawluuniyiintu ay haysteen 256 ilaa 294 iyagaa xukumayay haddana ikhshiidiyiintii qabsaday masar qabsaday 3,720 ilaa 3,950 iyaguna sidii bay u haysteen bal ikhshiidiyiintu iyagu waxay qaateenba arrin odhanaysa boqorradoo dhan in lagu aaso bayt al-maqdis oo boqorradii masar ka talin jiray meydkooda waxa la geyn jiray bayt al-maqdis baa lagu aasi jiray 359 markay taariikhda hijriga marayso ayaa nimankii faatimiyiinta la odhan jiray galbeedka ka yimaadeen masar bay qabsadeen waa soo dhaafeen shaam bay qabsadeen shaam bay 359 iyana ku darsadeen muddo aad u badan ayay nimankaasina ka talinayeen inta badan shiicadu masaaraadka iyo meelaha la tagay waxa aad bay ugu qurxiyaanoo iyagu ashyaada maadiga aad bay u ilaaliyaan sida daraaddeed bayt al-maqdis iyo sakhrada iyo waxaasoo dhan aad bay u qurxiyeen oo si fiican bay u dhisdhiseen 407 markay haddana hijriyadu maraysay baa zilzaal xoogani ka dhacay الظاهر الفاطمي نكي لورن جيري او دولة العبيدية كترسن اي 413 كي ديبو دساي هدنا 425 كي با مرشناد ميا زلزال كلا كدعي وآد دميي اسقي هدنا الظاهر الفاطمي با مركله هدنا دساي لكن ظاهر الفاطمي مركه دنبه و دسايو حق قلباتك يا حق بريغبا و كسو غابيي iyo arwaqadii qaybo ka midaba imika inta dhisani markaa waa ninkaasi markii uu soo gaabiyey intii uu dhisay ayaa hadda ah inta dayrku ku wanaagsan yahay loo yaqaan maxay المسجد الأقصى باسمها هدا تاغاني واسمها الظاهر الفاطمي انت ودسيسيداي موسوعة الفلسطينية قريش الدولة العباسية ومركن دباي حوق بدتي سلاجقدي ايا قولدان ريحدي او شام دب uga qabsatay dabeetana khudbadii ba khaliifka loo soo celiyay haddana dhexdooda iska dildileen nimankii salaajaqada ahaa faatimiyiintii baa ku soo noqday 489 bay dib u qabsadeen nin la yiraahdo iftikhaaru dawla ayaa markaa maamulo looga dhigay 3 sanadood markuu iftikhaarkaasi hayay 492 hijriyada ama 1999 miilaadiyada markay maraysay ayay qabsadeen nimanka saliibiyiinta ah ayaa masiixiyiintu qabsadeen waxa markaa laga bilaabmaysa taariikhda kristanka iyo bayt al-maqdis iyo soo noqoshadoodii dambe shaam dhulka la yiraahdaa waxay noqdeen dawlado yaryar oo muslima oo iyagu iswada haya dawladii salaajiqada Turkiyada ahaydna way hoos bay u dhacday magaalo kasta waxa gaar u qabsaday niman ataabik la yiraahdo ataabik waa al-ab al-wasi ayuu afturkiga ku yahay yaani waxa weeyaan nin la aniga lay dardaarmay meesha tan oo ninba goob yar buu goostay markay duwalka yaryar istilayaan midbaka kale ayuu xusuntiisa manjaniiqa madaaficda la dhici jiray oo dumin jiray iyadoo dhanka kalena dagaalkii
masiixiyiintu uu ka socdo dagaalkii saliibiyiintu isaga u socdo waa waqtiga ay samaysmeen saddexdii dowladood ee masiixiga ahaa ee shaam laga dhiso mid waxaa laga dhisay meesha la yidhaahdo antakiya 491 hijriga ama 1098 markay maraysay miilaadigu waa meel iminka turkiga ku taalla kadibna waxaa la dhisay imaaratu ruha iyana turkiga ku taalla waxaa kaloo la dhisay iyana mamlakatu orshalim 492 kaan sheegayna waxay qabsadeen bayt almaqdis halkaa waxaa ka bilaabmay dagaalada caankee loo yaqaano xuruubu saliibiya xuruubu saliibiya waa dagaallo kristankii yurub joogay ay muslimiinta ku soo qaadeen waa dagaallo socday 195 sannadood bay socdeen waa dagaallo ay u weynaayeen 8 xamlo ama 8 dagaal ayay soo qaadeen nimankaasi kristanka ah iyo kuwa yaryaroo iska socday dagaalkaasi wuxuu bilaabmay baa la yidhaahdaa 1095kii markii boobkii la odhan jiray orban boob la yidhaha orban athani baa la yidhaahdaa ayaa mu'tamar la isugu yimi faransiiska Clermont magaalo la yidhaahdo masiixiyiinta oo dhan oo isugu yimi ayuu wacdi ka jeediyey boobkii ugu weynaa kiniisadda kaatoliga ahi dabeetana wuxuu tirtir siiyey maanta inay tahay maalintii yurub intay midowdo ay bayt almaqdis oo ah halkii ilaahoodu iyagu say sheeganayeen uu de ku dhashay ee lagu dilay ee maryamo lagu dilay ee maryamo ku dhimatay ee caynkana kiniisaadkoodii ku yaalleen inay dib u soo xoreeyaan maalintaasi khudbaddaasi uu ninkaasi jeediyey yurub oo dhan bay gaadhay yurub ha gaadhee waxaa bilaabmay in wacdigiisii la qaado xoog loo faafiyo oo yurub oo dhan lagu faafiyo wacdigaa marka uu bilaabmay 8 dagaal waxay ahaayeen 8 dagaal oo munadama yacni 8 dagaal oo boqorradii yurub hoggaaminayaan oo wadaadadoodii la socdaan oo ciidamo tababaranayeen laakiin waxaa ka horreeyey xamaasaddii markii ay kacdayba waxaa jira wadaadda intay iska qiiroodeen shucuubtii beeralayda ha kiciye oo yidhi ina dhaqaajiya nimankan sugi mayno wax wadwade ah waxaa soo baxay fallaaxiintii faransiiska iyo jarmalka beeralaydoodii oo uu wato nin la yidhaahdo walter almuflis walterkii caydha ahaa iyo nin raahiboo la yidhahdo butros innaasik labadaasaa watay laakiin labada tani maadaama ay dadkan xamaaso geliyeen waxay ka bilaabeen intaynan muslimkaba gaadhin kuwan yuhuudda yurub jooga horta aan sii marhinno webiga rayn iyo agagaarkiisa wixii yuhuud joogay bay xaaqeen kadibna dad caamo iska ordayay ahaayeen kiniisaddii yurubta bari ayay soo dhex mareenoo iyana isku dayeen inay boobaan majariyiinta iyo bulgaariyaniska ayaaba la dagaalamoo kala firfirdhiyey qaybihii ugu badnaa waxay soo gaadheen markaa istanbul oo markaa byzantiyiinta dowladdooda ay ka talinayso boqorkii istanbul haystay alexius la odhan jiray ayaa wuxuu ka shakiyey nimankan iska socday wax walba boobaya waddankiisana inay rabshaan waddaha loo furo buu yidhi horaha u gaadhaan bayt almaqdiskay sheegayaan horuu isu soo dhaafiyey laakiin addawla saljuuqiyo markaa waxoogaa iska ladama meel dhexal la iska helay 43 bay gumaadeen waayo may ahayn askar tababaran hub fiicanna may sidanin niman beeralayoo la xamaasadeeyo wadaad hoggaaminayo oo yidhi meel baynu soo furanaynaa bay ahaayeen intaa kadib waxaa bilaabmay dagaalkii koowaad alxamla saliibiya lula oo uu hoggaaminayo raymond araabic iyo kodofari iyo bohmand iyo tankar waa 4 nin oo intooda badani dooqi ahaayeen bohmond isagoo maxbuusay muslimiintu markii dambe soo qaban doonaan laakiin waa ninkii antakiya haysan jiray tankrad waa normandiyiintii waa yurubta waqooyi nimankii intay ka soo duuleen faransiiska iyo dhulkan qaybo ka mida qabsaday oo markii dambe boqorka faransiisku iska muslaxay dabeetana gobol dhan bay degaan oo normandiyiin la yidhaahdo
gobolka ay degaan iyo dadkoodii baa isdhex galay markii dambena siqiliya iyo meelaha kan waa nimankii maamuli jiray waa vikingka nimanka la yidhaahdo marka laga sheekaynayo taariikhda yurubka waqooyi tancred ninkaa la yidhaahdo iyo codofori waa faransiis gobollada faransiiska qayb ka mida buu xukumayey raymondkanina waa raymondkii afraad ka yidhaahdaan raymond de govery ninka la yidhaahdo calaa kulli xaal waa niman dhanna wadaadda ka ahaa dhanna boqorra ka ahaayo meela haystay afartan nin oo hogaaminaya ciidamada ayaa soo galay 489 taariikhdu markay maraysay ayay waxay isu keeneen nimankaasi ciidamada Yurub oo ka kooban 19 jinsiyadood 19 jinsiyadood oo Yurub ah ayay 70,000 oo askari ka keeneen Edward Gibbon taariikhyahanka Ingiriiska Edward la yiraahdo wuxuu leeyahay dadkay wateen dad aad u jaahiliina ayay haayeen intaakiyay go'doomiyeen dabeetana waa qabsadeen antakiya markay ka qabsadeen saljuuqiyiintii dumar iyo caruur iyo cid walba waa mariyeen waa soo dhaafeen kadibna waxay ka qabsadeen faatimiyiintii meesha la yiraahdo bayt al-maqdis waa intay muslimku joogeen markii koowaad ee ay gasho gacanta masiixiyiinta bayt al-maqdis waa 1999 taariikhyahanka Ingiriiska la yiraahdo Stephen Runciman taariikhu qorayo tiro badan leh qayb ka mid ah waxa soo naqlinaya Gustav Le Bon kitaabkiisa Hadarat al-Arab wuxuu leeyahay saliibiyiintu markay ay meeshan qabsadeen magaalada ku faafeen iyo masaajidii wixii ka soo horbaxay ee rag iyo dumar iyo caruur midnaba may kala reebin buu yiri dilku ilaa habeenkii buu socday buu yiri may dadku ku nabadgelin buu leeyahay calankii Tancred waa ninkii romantiska ahaa vikingka qabiilka ka soo jeeday ninka kani dadkii ku soo yaacay qayb ka mid ah ayuu calankiisa siiyay waxay cabaar baa la istilay ammaan bay dalbadeen in la nabadgeliyo waan idin nabadgelinayaa buu yidhi calankiisii buu u dhiibay xataa kuwaa lama dayn bay yidhaahdeen ee kuwaana waa la xaaqay masaajidka kuwii galay waa la laayay 15 July 1999 oo ku beegan 23 Shabcaan 429 ayay meeshaasi si fiican u qabsadeen masaajidka ay galeen koox iyaga ka mid wixii ay masaajidka ugu tageen oo dhan bay laayeen Raymond de Gilkas oo Arbon ninka ka yimiya waxa uu yiri waxaan soo eegayaa meeshii kiniisadii Maryam laakiin meydkii meel uu ka marabo waay waxay tilmaamaan magaalada Qudus shawaaricdeedii waxa daadsanaa madaxyadad ما يوران مدحيدا ده waxay iyagu leeyeen ru'uus al-arab wa aydihim wa arjuluhum ba magaalada daadsanayd bay leeyeen qof maad meel mari karin bay leeyeen ilaa iyo meyd baad ka dul dhacaysay waxaasina yani markay iyagu sifaynayaan mid iyaga kamida Godfrey de Boulogne waxa uu ku tilmaamayaa yani markuu ka warramayo runtii si غير caadi ah uga warramaya markaan soo koobo inta aan idin akhriyay mariyeen waa waxay iyagu buwaagtooda ku qoreen hadaynu kuwa muslimiinta tagno ibn al-Athir oo masaladan ka warramaya wuxuu leeyahay ninkii Toch Arab Arsalan la oran jiray iyo groupkoodii marka ay daciifeen ee Faatimiyiintu meesha ka qabsatay ee ay nimankaasi soo galeen fursaday muslimiintu isku mashquulsanaayeen bay ka faa'iideysteen buu leeyahay markaas ay ka qabsadeen kadibna بيت المقدس بي أفرتن مالمود أما دوري أفرتن مالمود قوة من كوهية كدي بي قبصدين تضبات بي وحي كسهر بحب اللين يبولي وقف كستوي أركان أي لايين مركي دم بي أمان بي دات سيين دات كي أمان كسيين بي هدنا مريين مساجد قديه سوكور بولي وحلو قد لين كبادان تضبات كنوقف ودعدوين كوغو عن سنة ابن آدم لحاقه ayaa meeshaasi ka dhacay 9 sanadood ee maalinta ka dambeeyay bayt al-maqdis waxay ku jirtay gacanta kristanka
maalintaasaa la qabsaday 9 sannadood oo ka dambeeyay bay gacantooda ku jirtay maanta darisku halkaa ku joogo asalaamu calaykum waraxmat ullah